halgamayaashii ururka ONLF waxaanu leenahay siyaasadda ka qaybgala anigu waxaan u arkaa hoggaanka inay xaq u leeyihiin ayagu marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba dowlad deegaanka maanta ka dhisan dhulka Soomaaliya ee Itoobiya ku dhex yaal guusha dowladnimadaas maanta lagu naaloonayo oo Soomaaliya oo dhan ku naaloonayso ee aan hal magac ku naaloonaynin saldhig waxa uu ahaa oo ay miraheedii tahay ururka ONLF lagu daray dowladdii Maxamed Siyaad uu hogaaminayay dagaalkii 77 ayaa iskala mirahaas intaas wax walbana target bay leeyihiin meelay ka yimaadeen bay leeyihiin waa u mahadcelinaynaa madaxdii ONLF hogaaminaysay xilligaas waan u mahadcelinaynaa dowladdii xilligaas 77 dagaalkeedii oo ugu horeeyay Maxamed Siyaad waa u mahadcelinaynaa Allah u naxariistana waa leenahay madaxda ONLFna waa u mahadcelinaynaa ee hoggaanka soo qabatay wixii dhintana Allah u naxariistaan leenahay wixii nool waa u mahadcelinaynaa intaasaan anigu ku soo koobi lahaa بعدما وقت يريها آديات بأمهات سنتين هالجمياشي أورك ONLF وحنو لنا هاي سياسة كقريب جلا هجامينتا دولة ديجان كصومالينا صومالي وحيو أركتا أنا وحنو أركا هجان كإني حق ليهين أيوه مركز كوبات مركز لباد مركز الدعاء وحنا في عن in dadku isxaq dhowro qofan ka saaray iyo kooxan ka saaray ma jirtay ONLF dadkii u soo halgamay ee hadda nool oo dalkan hogaamin kara ama dhan siblaha ka yimaadeen ama dhan military in hoggaanka lagu xurmeeyo anigu waa jeclaan lahaa waana qabaa aad iyo aad baan u mahadsantahay